السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyada ku talagalnay waa habeenimo sabti ah oo axad ay soo galayso taariikhduna waa 13 September sanadka 2025 wararka barnaamijka aanu ku soo gudbin doono waxa kamid noqon doona dagaal culus oo maanta ka dhacay Gaza muqaawamada oo sheegtay in ay siday tahay ugu dubteen oo ay nagta ka saareen meelo kala duwan dagaalo ay isaga yimaadeen iyaga iyo ciidanka Israa'iil saraakiisha ciidamada Israa'iil oo aflabadii qayliyay sheeko la yaab leh ayay ka sheegeen dagaalka culus ee ay kula jiraan muqaawamada reer Gaza wararkii ugu dambeeyay Gaza iyo dagaalka waan idin soo gudbin doonaa waxaa kale barnaamijkan idinku haya mucaaradka Israa'iil oo markan ka digaya qorshe halis badan oo Masar ay ka shaqeynayso oo ah in Carabtu ay sameystaan ciidamo midaysan si ay uga hortagaan gulufka iyo gardarrada joogtada ah ee uu ku hayo dhulka Carabta Netanyahu iyo kooxdiisa haddaba Israa'iil gudaheeda ayaa arrinka muran weyn uu ka dhaliyay تفاصيل بان ينا إذن كجسو قدبين دونا ورر عصب أو صباح وحي شيغيان إن وفتي وهقامنا يو وزير كاريمات دي تركيا هكان في الدان يقونا يوان ببحيان مقالة دا جدا سي أي مركاسي وقاقيب قلان كوران عادي هاي وأيلانا يان مضحدا وضمدا إسلامك يقو كشريا أرنتا ويرركي لقوقا عادي دوحة دالك غضر qodobadaas aynu barnaamijkeena caawa ku faahfaahinayna inta aan ku jirno wixii warar soo kordha waan idin la socodsiin doonaa runtii wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan habeen wanaagsan ku soo dhawaada wararkeena habeenimo waxaynu ku bilaabaynaa deegaanka la yiraahdo Khan Yunis ee ku yaala koonfurta Gaza ayaa mar kale maanta waxa isku farasaaray guutada la yiraahdo Khan Yunis ee muqaawamada Falastiiniyiinta Hamas iyo waliba ciidan Israa'iiliyiin oo halka ku sugnaa haddaba dagaal culus ayaa dhacay galabta waxaana wax ka qoray telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay iskoorimaadyo aad u qaraar ayaa waxay dhexmareen ciidanka Israa'iil iyo muqaawamada ku sugan Khan Yunis warbaahinta Israa'iil ayaa caawa tabinaya warar sheegaya in iskoorimaadku uu ahaa mid aad u kulul kaasoo la sheegay inuu dhexmaray xubno ka tirsan muqaawamada iyo ciidanka Israa'iiliyiinta Khan Yunis koonfurta marinka Gaza haddaba waxaa la sheegayaa warar aynu ka helnay dhanka muqaawamada ay leeyihiin Al Jazeera in halka ay ka dhaceen dhibaato soo gaartay ciidanka Israa'iiliyiinta ah oo aan la sii faahfaahinin balse waxay ku koobeen warbaahinta Israa'iil xadath amni ama dhacdo amni oo halka ka dhacday kadib markii dagaal aad u qaraar uu halka ku dhexmaray labada dhinac dagaalkaas marka galabta maghribkii u dhacay dhagaha la iska garaacay nimankii meel ay soo galeen waa la jabsaday dhagaha lagu dhuftay warbaahintoodu marka waxay leeyihiin ma sheegi karno wax dhintay iyo wax dhaawacmay laakiin meesha waxa ka dhacay wax af Carabeedka lagu yiraahdo xadath amni la yiraahdaa macnaha dhacdo amni ayaa meesha ka dhacday waxaana loo maleynayaa in askar badan lagu qararamsaday halkaas marka sheekadu markay halka joogto ayaa Al Jazeera waxay soo heshay sargaal sare oo ka tirsan ciidanka Israa'iil oo faahfaahin ka bixiyay xaaladda ciidankooda mar kale isagoo sheegay dhibaatada ay kala kulmayaan dagaalka geesinimada leh ee ay markaa ku jiraan muqaawamada reer Gaza haddaba wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan sargaal Israa'iil ciidankeeda ka tirsan ayaa wuxuu sheegay in ciidamada ay hadda ka cabanayaan wax la yiraahdo istinzaaf haa'il ama dhiigbax aan caadi ahayn oo Gaza kaga socda haddaba ciidanka dhiigbaxaya isagoo sii faahfaahinaya sargaalkan ayaa waxaa la sheegay inuu ka tirsanaa ciidamada bariga ama dhulka ee Israa'iil wuxuuna u waramay journaalka la yiraahdo Wala ee Israa'iil ka soo baxa wuxuu sheegay dhiigbaxa iyo waxa kan inuu ula jeedo dhibaato mar walba ku socota ciidanka shakhsiyan ama afraadda ciidanka in markaa wax dhintay iyo wax dhaawacmay ay noqonayaan wuxuu sidoo kale ku macneeyay dhiigbaxa in iyaduna ay meesha maalin walba ka baxaan mucidaad wax la yiraahdo ama qalabka militariga ay wataan ciidanka oo halka lagu baabi'iyo Gaza sheekada cajiibka ah ee uu ku daray wuxuu yiri
ninkaas sargaalka sare ee Israa'iiliyiinta ah ma aanan arag wax la mid ah iska caabinta xajmiga ay la eg tahay muddada socota 2 sano ee aynu kala kulmayno Gaza ciidanka Israa'iil weligiis tan oo kale weligeen ma arkin weligeen ma arkin tan 2 sano niman jilbaha inta noo aastay oo istinzaaf nagu wada dhiig bax af carbeedka waa dhiig bax waxa laga wada dhiig socdo ma aha laakiin waa iska dhiigii socday askara dhimanaysa kuwa dhaawacmaya baabuura la gubaya marka wuxuu dhiig baxu wuxuu ka socdaa ciidankuna wuu ku socdaa baabuurtii aan wadanayno ku socdaa 2 sano waana la qaramsaduu leeyahay meesha waxa ku jira wax caadi ma ahan u leeyahay marka si loo fiiriyo dadka wax falanqaynayaan waxay leeyihiin meesha mucjiso rabbaani ah ku jirta dad guryahooda la dumiyay la gaajaysiiyay dawal loo diiday hub loo diiday oo hadana dagaalamay oo cidii ay la dagaalamayeen oo wax kasta haysatay ka qaylinayso leedahay meeshan waxa ku jira wax caadi ma marka yaa la dagaalama ilaahay baa yaqaan waxa meesha ka dagaalama marka hawshaas halkaas iyaduna maraysa arimihii Gaza marka wararkoodu halkaas ay kaga gudbaynaa sheeko kale oo xiiso leh ayaa iyaduna soo baxaysa oo soo korortay haddaba sheekada kale xiisaha leh ee soo korortay waxay tahay mucaaradkii Israa'iil ayaa waxay leeyihiin qorshe halis badan Israa'iil ku soo socda oo Masar ka shaqeynayso waaba hadduu tooso oo Carabi Israaciil kaasa khatar loogu waa waxa aan weligeen ka dagaalamayna Carab inay wax isku darsato oo maaragtay ay wax noqoto laakiin waxa nagaarsiiyay ninka leeyahay Netanyahu soo Carab kasta ugu duulayo nagta uga saaray halkan ugu booday halkan ugu Carabtii marka qaati bila joogan la foodiyay la baqayaan marka hadda Masar waxay taagan tahay aynu samaysano alquwaat mushtaraka wax leeyahay ciidamo wada jir ah oo Carabi leedahay oo Carabta ka difaaca horarkan bahalka ah ee meel walba ku habsanaya Netanyahu leeyahay saasaga dhicinayay marka mucaaradku wuxuu leeyahay Carabi inay waxa ku fakarto waa iska haysan midba maraan meel ku haysan laakiin hal mar waxa soo dhan la kiciyo nimanka ka dambeeyay marka aan tuso sheekada laga qoray arikaas telefishinka la yiraahdo Sky News ee laga leeyahay wadanka Ingiriiska wuxuu leeyahay ninka la yiraahdo Labed waa hogaamiyaha mucaaradka ayaa wuxuu sheegay muqtaraxa ama hindisaha Masar inuu markaa ka shaqeynayo sidii loo sameyn lahaa ciidamo Carbeed kuwaas oo uu sheegay inay markaa ku tahay Israa'iil darbo markaasi aan caadi ahayn haddaba marka wuxuu leeyahay hogaamiyaha mucaaradka Israa'iil Yair Lapid in markaa aritari hindisaha Masaarida uu yahay sameynta ciidamo Carbeed oo mushtaraga ama la wada leeyahay oo Carabi oo dhan ka dhaxeeya si ay uga hortagaan weerarada Israa'iil waxa uu sheegay hogaamiyaha mucaaradka in aritani ay markaa Israa'iil ku noqonayso dhibaato iyo waliba heshiisyadii nabadda ee hore loo galay Lapid wuxuu sidoo kale soo hadal qaaday arrin ku saabsan in loo baahan yahay in dib loo fakaro waxa inta la sameeyo way marka ninka hadalkiisu waa dheeraa waxa kamid ah waliba qodobada oo uu ka hadlay ninkan mucaaradka ah maalintii ay hadda codeeyeen jumciyadda loo dhan yahay ee qaramada midoobay dawlado badan oo saaxiibadeen ah naga codeeyay oo naga soo horjeestay Falastiin u codeeyay waxa soo dhan marka in Carab hub ku fakaraan ciidan samaystaan ku fakaraan in maartay dawladii saaxiibka nalaha Ingiriiska iyo Faransiiska qoloyinkaas ka wada ay naga codeeyaan waxa soo dhan nacayba nimanka noogay haska tagaan u leeyahay dhibaatin uga hadda marka Carabti hubay noo arursanaysaa u leeyahay marka mushkilad weyn ah marka meesha ka taagan alle qodobka isaguna halkaas ka gudbaynaa qadar xayisiisa kadib waxaan galaynaa sheeko kale oo ku saabsan Turkiga wasiirkiisa arrimaha dibadda oo ka qayb galaya shir islaamka iyo Carabta iyo isugu imanayaan oo looga hadlayo arrinta Dooxa shirkan dibadda wax falaqaynaya barkii ay maqlaan Carab iyo Islaam ma shiray waxay leeyihiin nimanka warqaday soo qorayaan cambaareen mar laga adeegto nagta laga saaray maxaa cambaareen uu ka karay nimanka cambaareen ma karaysa
haddaba marka sheekada cajiibka ayaynu u gudbi doonaa iyo shirka iyo waqtiga la qaban doono laakiin xayisiinta ayaynu ka hormarinayna majaacahay barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada hab casri ah online ah adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada markaas Daaru Taqwa waxa kugu baraya qur-aanka hab casri ah online ah maadooyinka aad ka baran karto waxa kamid ah qur-aanka kariimka hikada luqada carabiga iyo culumta shareecada isdiiwaangelintu way socotaa fadlan horugaad waxay faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda hamogaadi dugsiga markaas Daaru Taqwa sharikada Imara Luxury Homes waa sharikad guryaha casriga ka dhista magaalada Nairobi ee dalka Kenya haddana waxa ay ka wadaa dhismaha loo yaqaan The View xaafada Backlands jidka 6 Avenue City Park dhismaha The View waxa uu leeyahay adeeg kasta oo asaasi ah waxana uu ka kooban yahay sida 2 qol 3 qol 4 qol iyo waliba qolkii shaqaalaha iyo 4 qol oo 2 dabaq oo isdul saaran waa nooca loo yaqaan duplex haddaba imika waxa socda barnaamijka sharikadu ay u bixisay 90 days promotional kaasoo la magac baxay hoyga waa muhiim hanti yeelo kala xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqda kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeeni habeenimo waxaynu maraynaa qaybihiisa ugu dambeeyay haddaba waxaa leeyahay islaamkii dowladii islaamka iyo kuwii carabta ayaa shir yeelanay way xanaaqsan yihiin waxay ka xanaaqsan yihiin weerarkii lagu qaaday qadar maxay meeqaa la soo cunay yamanaa la weeraray lubnaanaa la weeraray suuriyaa la weeraray wax la daayay ma jirta meeshaan falastiina maalin walba la weerarayaa la garaacayaa haye meel la daayay ma jirtaa nagtaa lagu wada hayaa kulligood marka hadda waxaa weeye dowladii islaamka iyo kuwii carabta way shirayaan arrinta waxay ka xanaaqsan yihiin weerarkii qadar lagu soo qaaday marka masaariduna waxay uga faa'iidaysanaysaa hindisaheedii iyo qorshaheedii ciidan samaysanno warnimayo ciidan rigli oo diyaara oo hubkiisu u dhan yahay dowlad walba qayb ka socdaan oo meel kasta degan oo ka jawaaba bas Israa'iil weerarada ay soo qaado ka jawaab gantaal hadii suurta gantaal ku dhufta waa ciidankaas samaysanay masaarida wada haddaba marka aan tusoo wararkii ugu dambeeyay wakaalada wararka Anadolu waxay leedahay Fidan waa wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa booqan doona Qatar si uu uga qayb galo kulanka loogu diyaar garoobayo shir madaxeedka dalalka islaamka iyo carabta ayaa loogu diyaar garoobayaa haddaba waxaa la sheegayaa sida la filayo wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa waxa uu tagi doonaa magaalada Doha ee dalka Qatar si uu markaasi uu kala hadlo madaxda waddankaas hujuumka Israa'iil ay ku qaaday ama weerarka Israa'iil ay ku qaaday halkaas haddaba wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan ayaa caasimadda Qatar tagaya berito oo axada si uu uga qayb galo kulan wasiirada ay markaa ku diyaarinayaan shir madaxeed madaxda iskaashiga islaamka iyo jaamacadda dawla carabiya ama jaamacadda carabta ay yeelan doonaan isniinta soo socota haddaba wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa waxay u sheegtay Anadolu Sabtida in markaa kulankaasi la filayo in looga doodo mashruuc kaasoo ay soo gudbiyeen dowladaha qaar kaasoo markaasi ku saabsan iskaashi islaami iyo mid jaamacadda carabta ah oo dhexmara in markaa looga hortagi karo arrinka haddaba Fidan waxa uu sheegay in markaa Turkigu uu la safan yahay walaalahooda Qatar oo naga tacsiyeenayo dhibaatadii ku dhacday weerarkii Israa'iil ay ku qaaday dalkaas marka nimankii waa bislaadeen carabti dowladii islaamka ku soo darsadeen ninba maalin nagta laga saaraya waa la duqeynaya waa la garaacaya kana la garaacaya marka hadda waxay leeyihiin war dowladii islaamka iyo carabtiyo war inta isku tagno aan ciidan samaysan haddaba inay samaysan karaan in kale waa hawl kale laakiin shaqadaas ayay wadaan leeyahay marka shirka gobol xaarkiisa wuxuu ka dhacayaa magaalada Doha dalka Qatar maadaama ay tahay meeshii mushkiladda ama dhibaatada ka dhacday haddaba marka waa arki doonaa wixii warar soo kordhay kuna fakarkiina aragtida noo soo qora barnaamijkayga habeenimo waa naga inta barnaamijkii galabta isaguna aad u xiiso badnaa barnaamijkayga galabnimo waxaad ka heli doontaan macluumaad iyo warar cusub inta aan markale kulmayno asxaabay like gareeyo share gareeyo barnaamijka nabadgelyo